إسرائيل waxay go'aansatay inay weerar buuxo ay ku qaado Yemen iyo sababta Soomaaliya hawadeeda ee Israa'iil u rabto inay isticmaasho intaas oo idin bayaamin doona laakiin warka soo kordhay saxaafadda ay qorayso sida ujeedaan ayaa wuxuu yahay in cidii Israa'iil ahayd sheekadii Iran oo kale inay rabto inay ka sameyso Yemen oo Yemen ay leeyihiin Israa'iiliyiinta halis weyn ayuu aragnaa tii Iran oo ku sameeyeen oo kale ay rabaan ismaan macnaha waxay ka wadaan hawada Yemen inay la wareegaan diyaarada far badan iyo balaay ay soo galiyaan meesha laakiin Sacuudiga haday rabto Yemen inay gasho sida Iran oo kale waxay ka soo mari kartaa dhanka Sacuudiga hawada Sacuudiga inay isticmaasho taas waa mid labaad waxay tahay badan Red Sea-ga inay isticmaasho ayadana waa mid saddexaad waxay tahay hawada Soomaaliya inay isticmaasho labadan kale Sacuudiga iyo Red Sea-ga inaysan isticmaali doonin iyo sababaha idin sharxayaan horta Sacuudiga wuxuu rabaa in hadda ka hor Yemen uu duulaan ku qaaday sida la socotaan waxay isku dayayeen inay xuutiyiinta meesha ka saaraan Sacuudiga wax walba uu sameeyay xuutiga uu jicin waayay heshiis dhaxmaray heshiiskaas oo ah Sacuudi anagu ma taabanay adigana ha taabanin sidaas awgeed boqol uma maleynayo in Sacuudiga u ogolaan doonaan Israa'iil inay hawada isticmaasho okay leenkaas waa soo xirmay Soomaa badda cas ku soo hartay badda cas waa meel halis ah oo diyaarado aadan u isticmaali karin haddii maraakiib waaweyn meesha aysan ku joogin waliba badda cas waxaa saldhig ku leh sida saxaafadda ugu jeeda xitaa Al-Jazeera ay qortay neviga Iran barakiibta badda ee Iran oo haddii diyaaradaha Israa'iil hawada ay soo galaan isla markii u sii sheegayo xuutiyiinta oo dhahay diyaaradaha hawada soo galay diyaar ahada xuutiyiintuna waxay haystaan gantaalo casri ah oo horumarsan oo diyaaradaha soo ridi karo taas ayaa waxay sababaysaa in Israa'iil gibigeedaba ay iska ilaaliso inay isticmaasho hawada badda cas iyo sidoo kale baabul mandab iyadoo waxay rabtaa diyaaradaheeda inaanan la arkin Soomaa halka wado kaliya ee u furan ayaa waxay tahay inay isticmaalaan hawada Soomaaliya yani badda cas marka fiiriso qariirada Eritrea meeshaas fadhiso Eritrea sideedaba waa border badda cas waa dal aad u yar Soomaaliya ka yar iyada marka wixii soo galo reedaalka Iran soo qabanay xitaa xuutiyiinta waxay haystaan reedaal casri ah oo wixii soo galo dhankan iyo Eritrea ila Sudan sheegayo ila Soomaaliya sheegayo qaban marka waxay sameyn doonaan Israa'iil saa anigu u fahmay dhanka Ethiopia galayaan Ethiopia xuduud lama lahan Yemen oo ognahay saasay u soo marayaan waxay soo dul mari doonaan wasida aniga qaab military ahaan marka u firiyo dhanka Soomaaliya gadaal ka soo galayaan ilaan diyaaradaha wax duqeeyo Yemen inay dul tagaan qasab ma marka adiga xisaabtan isku dardar maalin dhaxdaas cidii Imaaraadka Carabta ahayd ayaa waxay soo degsadeen reedaal Israa'iil ay sameeyso Imaaraad Carab soo degsaday waxaana lagu dhijiyay Boosaaso sidaas awgeed Boosaaso indho iyo dhago labadaba way u yaalaan Israa'iil haday rabto inay isticmaasho ayadoo Imaaraadka Carabta u soo marayso ilaan wax ay qalab ayad ay sameeysaa meesha yaala taas horta ma ogeedeen taasa marka aniga u sababeynaya in Yuhuudda ay rabto inay hawada Soomaaliya ay isticmaasho markuu dagaalkan bilowdo laakiin waqtiga sheegi